sababta aan ula soo xiriiray walaalo waxaa la ii isticmaalay power abuse waxa la yiraahdo amba qofkii awood xilka wadanka u hayay uu isticmaalaya inuu dadku abuse gareeyo ama ku caburiyo ama ku farageliyo hawsha uu qofku u hayay qaran taasaan idinla soo xiriiray waya marka cidda sida gaarka ah ee arrinta u sameynaysa oo aad ka cabanaysa hadda noo sheegi kartaa ها هو سياسيين قرن كصوماليين كمد أو وزير دولها قاشان ديقن محمد علي حاجة أو أهنا حلبان فدرالك أهنا قدوم بها قدر اسكودافك عيدا مرة صومالية maxay tahay marka sababta keentay in adigoo guddigii doorashada heer federaal ku jira in hadda arrintaada ka cabanaysa ee hadadaada ay timaado wallahi walaalo ma aha ninkan marka ugu horeysay oo ila dagaalamo guddiga markaan soo galay dagaal badan oo ila galay oo uu gaaray heer ma aha gabadhan qabiilka ay ku soo gashay markaan ka soo gudbay guddigii aan soo galay daqaaqo la khamiistii wada ogeedeen Somaliland doorashadeedu inay waxyaabo badan dib u hakiyeen oo arrimo siyaasadeed ay haysteen oo sida ay dib ugu dhacday seminaarkii anoo ku jira oo qayb ka mid ah oo ka hadlaya qoodada haweenka ayaa dumarkii soo baxay waa la tukaday adadi markii lagu noqonayo ee gudoomiyaha guddiga federaalka uu noo imanayay oo uu soo xirayay meelaha labadii iyo barkii ayuu soo garaacay maxamed cali xagaa wasiirku wuxuu igu yiri hawlaha aad ku jirto haddii aad ka bixi weydo waad u dhiman doontaa meeshana muqdisho la yiraahdaa qorana wuxuu igu yiri Soomaaliya ma rabtaa inaad ka shaqeysato markaan guddiga soo galay waya marka waxa lagu qoonsaday koontada haweenka oo raadis xoogan aad ugu jirtaa mise wax kala jira walaalo anigu raadis xoogan ugu jiro guddigan kamid ahay guddiga ayaan ku jira waxa ay sameynayaan oo baa sameynaya meesha waxa ka dhacay saddex oday oo kamid ah beesha ka soo jeeda isku beel baan nahay ninkan saddex oday baa isqabsaday oo beesha ka soo jeeday beeshan ka soo jeeday isku beel baan ka soo wada jeedna odayaashiba waxba isku qabsadeen waa si jawaari uu saxeexay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka uu sharciga hoos ugu dhigay oo ahayd in qoladii heli karta kontonka qof ay kontonka keensadaan qoladii kalena ay ka dhaxaysiistaan konton oo labada kursi ay ka wada dhaxaysiisan karaan saddex oday oo beeshaas ayaa isku qabsaday aniga inaan kala banaanka u soo saarnay odayaasha waxaan isku daynay inaan dhexdhexaadino waxaan u malaynayaa in arrintaas ay la xiriirto dhexdhexaadinta odayaasha dhexdhexaadiyay inuu ka hadlayo markuu ii dhaaranayay xildhibaanaa fadhiyay xildhibaan sakriya fadhiyay xildhibaan kaamil baa fadhiyay laba oday oo garanayna sakriya iyo kaamil la socdeen waa fadhiyay afar qof oo markhaatiyaan haysta haddii marka arrintan hadda ay soo kortay culayska dhankaaga uu soo fuulay cid kaloo laamaha ammaanka oo arrintan ama madaxda qaranka u gudbisay oo la wadaagtay ama guddigan heer federaal arrimaha doorashooyinka u gudbisay arrintaada ma jirtaa waan u gudbiyay laakiinse walaalow power abuse la isticmaalay weli ka hadashay ma arag waxaan kala codsanayaa CID-da iyo nabadgelyada iyo international community iyo civil society inay arrimaha dadka doorashada ku jira loo caga jugleeyo ee waliba dumarka ah ee power abuse lagu sameeyo waxa la isticmaalay xeerka dastuurka 128 oo power abuse inay ka hadlaan oo laamaha ammaanka iyo civil society iyo international community inay ka hadlaan ana ku wargelinayaa inay arrintaasi jirto haddii doorashada ka bacdi iyo inta doorashada lagu guda jiro ay wax soo gaaraan waxa idilay maxamed cali xagaa waa tahay marka arrintii shaqadii aad haysay ma ku socotaa oo weli ma wadaa mise cabsi ayaa ku gashay walaalo hadda waxna ilaahay baa dilo waxna ilaahay baa nooleeya shaqadeedu qof power isticmaalaya oo power abuse isticmaalaya shaqadeedu ma joojinayo qaranka Soomaaliyeed hawshan u wado marnaba ma aha qof ka joogsanaysa ma ihi waana wadaya inta hawsheedu ku dheer tahay